waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran janaalka Bidaasho aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartaan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago xog aan kaga hadli doono saddex arrin oo u gaar ah jilaaga caanka ah Shaaruq Khan oo aysan la wadaagin jilayaasha Hindiya caanka ah haddaba waa kuwii saddexdaas arrin xogtaas ayaan idinla wadaagi doonaa balse intaan u guda galin muuqaalkayga waxaan kaa codsanaynaa janaalka soo birto subscribe saarto haddii muuqaalku cajab geliyo like inoo saar wixii ra'yi aad qabto commentiga hoos inoogu reeb sii share gareeyo la wadaaga asxaabtaada soona dhawaada saaxiibayaal Shaaruq Khan waa mid ka mid ah aktarada loogu jecel yahay Hindiya qaasatan Bollywood waana mid ka mid ah aktarada ama aktarada ugu guulaha badan ee soo mara taariikhda dalkaasi Hindiya saaxiibayaal Shaaruq Khan waa sidoo kale mid ka mid ah aktarada ugu taageeraha badan caalamka markay timaado aktarada aflaamta sameeya ee kuwa ka soo jeeda gudaha dalkaasi Hindiya sidoo kale Soomaali badan oo waxa jirta aad u xiiseeyo ama aad u taageera jilaagan Shaaruq Khan haddaba maanta waxaan idin wadaagi doonaa saaxiibayaal saddex iskoor u yaal jilaagani Shaaruq Khan aysan cid kale aysan la wadaagin ama aysan jirin cid kale oo jabin karta saddexdaas iskoor haddaba saddexdaas maxay kala yihiin haddii aan ku bilaabno sheekada arinta ugu horeysa oo saddex xaqiiqo in kaga hadlaya ama saddex arrin u gaar ah jilaagani waxa weeyaan Shaaruq Khan waa jilaaga kaliya ee Hindiya u dhashay ee dhalashadiisa ama yacni taariikhdiisa cashir ahaan looga bixiyo mid ka mid ah kollejyada Britain ku yaala khaasatan college-ka lagu magacaabo Cambridge college-kaasi waa taqaaniin oo waxa la yiraahdaa King College School of Cambridge magaaladaasi ama dalkaasi Ingiriiska ayuu ku yaalaa haddii aad eegto mid ka mid ah buugagta ku baxa waxaa ku jira cashir looga hadlayo ama taariikh nololeedka jilaaga caanka Shaaruq Khan kaas oo cashir ahaan loo siiyo haddaad is leedahan bidaayo waa beentiis isha ku macallima oo ana kana hadda muuqdo ama safxadaasi ama page-kaasi oo idin muuqdo ayaa taariikhda jilaagani cashir ahaan loogu bixiyaa college-ka Cambridge saaxiibayaal waana mid u gaar ah jilaagan Shaaruq Khan ma jiro aktar kale ee la wadaaga sheekadani sheekada saddexaad ama arinta labaad haddii aan u gudubno jilaaganu waa jilaaga kaliya ee loogu yacni taalooyinka ugu badnaan looga dhisay daafaha caalamka markaan eegno taalo maahan taalooyinka caadiga maaha laakiin waxaa jira waxyaabo dadyoga caanka ah lagu maamuuso sida qaab taalo ahaan looga dhiso ninkan ayaana looga dhisay taalooyin badan tusaale waxaan soo qaadan karnaa magaalooyinka looga dhiso waxaa kamid ah Berlin, London, New York kale, Paris oo kale, Thailand looga dhisay, Washington DC, Singapore oo kale meelaha kale looga dhiso waxaa kamid ah Hong Kong oo kale Hollywood-ka oo dhankaasi oo Mareykanka ah Delhi, Sydney oo Australia Paraguay sidoo kale meelooyinka taalooyinka looga dhisay jilaagan Shaaruq Khan waxaa kamid ah Kolkata oo gudaha dalkaasi India saaxiibayaal mana jiro aktar intaasi magaalo lagu maamuuso ama taalooyin looga dhiso ama taalo looga dhiso jilaagani waa sheeko labaad ee asiga kaliya u gaar ah ma jiro aktar kale ee la wadaaga xogtan ama arrintan aan saaxiibayaal mana jiro aktar kale ay jabin kara iskoorkan ugu dhiga Shaaruq Khan iskoorka saddexaad ee ugu dambaysa in la wadaagi doono waxa weeyaan jilaaga Shaaruq Khan waa jilaaga kaliya ee Hindiya ka soo jeeda dowladda Faransiiska ay siiyaan awaalmarinta lagu yeeray Knight of the Legion of Honor awaalmarintani waa awaalmarinta ugu weyn ee Faransiiska ay siiyaan shakhsiyaadka caanka ah mana jiro aktar kale ee Hindiya u dhashay ama soo maraba taariikhda ee awaalmarintani ee dowladda Faransiiska ay bixiso la siiyay waana Shaaruq Khan awaalmarin kaliya ee asiga qaas u ah mana jiro aktar kale Hindiya ka soo jeeday awaalmarintani ee Faransiiska ama dowladda Faransiiska ay bixiso la siiyay saaxiibayaal markii saddexdan arrin ama saddexdan iskoor waa saddex iskoor u gaar ah jilaaga caanka Shaaruq Khan mana jiro aktar kale ee dhigi kara ama u soo dhawaan kara xataa ee sameyn kara sheekadan ama saddexdan xaqiiqo ee kala wadaaga jilaaga caanka Shaaruq Khan waan wada ognahay waa mid ka mid ah jilaayaasha hadda waa midka saddexaad ama labaad ee Hindiya soo mara aktar markay imaado aktarka ugu taageeraha badan ee Hindiya lagu jecel yahay marka la eego daafaha caalamka dadyoga xiiseeya aktarada Hindiya u dhashay ka xamaashay gudaha qaasatan Bollywood markaan eegno saaxiibayaal marka intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xogtii yareed aan kaga hadlayay saddex arrin oo gaar ah jilaaga caanka Shaaruq Khan ka aysan jabi karin ama aysan sameey karin jilaag kale Hindiya u dhashay saaxiibayaal fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like inoo saar like waa inoo dhiirigelin sidoo kale haddii aad janaalka cusub tahay subscribe inoo saar oo gambalaalka furo si aad u hesho muuqaalada bartan soo dhigno sii share gareeyo la wadaaga asxaabtaada wixii ay aad qabto commentiga inoogu reeb waan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena